عليكم ورحمة الله وبركاته walaalkiin farxaan maanta waxaa raba in akhbaarni sheego waxaa soo dhow waxaana soo hayo samarkii waa waqtigii caruuraha iskuulaha loo xiri lahaa ee guryaha soo fadhiisan lahaayeen oo u baahnaayeen waxay ku mashquulaan ama barnaamij in loo sameeyo samarkan waxaan la shaqeynaynay hay-adda la yiraaho summer works oo xafiiska meeyarka ka imaado oo waxay sameynayaan ardayda 16 jirka ilaa 25 u dhexeyso in ay shaqo siiyaan waqtiga samarka aniga 2009kii anoo high school dhiganayo ayaan u shaqeeyay programkan waxaa la summer works waa lagu beegarinayaa waxaa lagu geenayaa shaqo professional ah waxyaabaha jecesha engineering haddaa rabtid medical haddaa rabtid office clerk haddaa rabtid dowladda all this opportunity-gan waxaa waaye marka applicationka buuxisid ayaad sheeganaysaa kabacdi waxay sameynaya hay-adan waxay ku aadinaysaa kambaniyo badan oo iyagana lagu yiri inaa caruurta high schoolka ay shaqo siisaan waqtiga samarka soo marka ka faa'iidaysa programkan haddaa dhalinyaro adiga aad tahay daawanaysid ama adiga aa waalid tahay oo aad u rabtid caruurtaada inay ka faa'iidaystaan linkiga wuxuu ku jiraa youtubekan hoostiisa pagekan ama wuxuu ku jiraa hoostan linkiga haddii uu yahay tiktokna wuxuu ku jiraa qeybta profilekeyga marka caruurta ha loo sameeyo barnaamij because waqtiga samarka ah waa waqtigu crimeka u badan yahay waa waqtiga uu ardada isbaabi'iyaan waa waqtiga uu badan yahay idolinka waa waqtiga uu u badan yahay inay caruurta ay bartaan waxyaabaha muqaadaraadka waxaa ka mid ah xashiishka khamrida iyo drugs qaara waxaan ku sheegayaa cunuga markuu high school dhigto in la baro weeyo responsibility in la baro waayo shaqo inuu barto waayo waqtina in la shaqaysto waqtina wax la barto cunug guriga iska fadhiyo oo computerkaas ku dhex jira maanta o dhan ama telefoonkiisa ku jiraa wuxuu soo kordhinaya ma leh he needs to learn skill waxaa la barayaa soft skills wax la yiraaho xataa arday waxaa jirto waa jaamacadda University of Louisville qaybta engineering ayaa qaadanayso iyagana in la tuso waxyaabo badan war dhibka jira waxaa waaye caruurteena fursadaha opportunity-ga ee dadka kale wadankan ala jegana ay helaan waa u banaan tahay laakiin waalidka laga rabaa inuu arrimahan oo kale uu u soo jeediyo oo qayb geliyo marka insha Allah wixii su'aal qabsi commentiga u soo qor wixii su'aal qabtid office-keena la soo xiriir lambarkeena waa kaasa waxaan isku dayaynaa intaan caruurta caawin kara inaan caawino laakiin muhiimadda waxaa waa formationkan oo kale inuu ku soo gaaray oo aadan ka warhaysid assalaamu calaykum